wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada qaranka Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado sida uu warkan ku faahfaahinayo Jeylaani Xuseen Yuusuf. wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo gaaray magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado. garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa waxa ku soo dhaweeyay wafdiga maamulka gobolka kan degmada iyo saraakiisha ciidamada dawladda qaar ka mid ah. ujeedka wafdigan ay u yimaadeen magaalada Garbaharey ayuu ku sheegay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Sayid Cali in ay kulamo la yeeshaan dadka ku dhaqan magaalada Garbaharey si aragtidooda ku aadan in doorasho cod iyo qof ay dalka ka dhici karto 2020 ay u ogaadaan. gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharey Aadan Siraad taliyaha ciidanka guutada 10aad ee dawladda sanka iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado Macalimo ayaa uga mahadceliyay wafdigan safarkooda ay ku soo gaareen magaalada Garbaharey. ku-xigeenka guddiga doorashooyinka ee heer federaal muxuu ahaay Cabdi Cali Saciid Cali maamulka gobolka maamulka degmada taliyaha ciidanka iyo saraakiishiisa bahas xaafadda iyo dhamaan muxuu ahaay waftiga kala gedisan ee maanta soo gaaray degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado. walaalayaal waxaan leenahay waxay noo tahay farxad aad u ballaaran in muxuu ahaay wafti heerkan uu soo gaaro maanta loogu soo gaartaan magaalada gobolka Gado Garbaharey. waxaan isleeyahay waxaa tiin guddiga doorashooyinka socdaalkeenu waa socdaalkii mustaqbalka ee Soomaaliya aad baan maskaxda ugu haynay doorkiina ku aadan in shaqadaan ay gobolkan soo gaarto ama Soomaaliya ay ka socotana waxa ay loogu faani karo weey insha Allah billahi kariim aad baan idin soo dhaweynaa ugu faraxsanahay maashitaankiina walaal aad iyo aad u soo dhawaada soo dhaweyn wanaag soo dhawaada caasimadda gobolka Gado waa guriyihiina ila mid tahay waa idin ku faraxsan yahay kale insha Allah bulshooyinka ee reer Garbaharey waa idin sugaysaa aad iyo aad baan idin sugay soo dhawaasho wanaagsan soo dhawaada leenahay aad iyo aad aan ugu faraxsan yahay. gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Sayid Cali ayaa sheegay in magaalooyin badan oo Jubbaland ka tirsan ay safar ku tagi doonaan si dadka ra'yigooda doorasho ee 2020 ay u ogaadaan. waxaan u nimid magaalada Garbaharey maanta shaqo socota oo maaragtay wada tashi doorashada geedi socodkeeda inaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan oo la gaari karo inaan gaarsiino kalana tashado geedi socodka doorashooyinka marka bulshooyinka reer Garbaharey waxaan leenahay mahadsantihiin waan idin salaameynaa maanta iyo beri iyo wada la joognaa waxaan ka wada tashanaynaa sidaan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod 2020 wadadaas dheer si taladiina maaragtay ay qayb ugu noqoto habka aan u abaabulayno doorashadaas. Jeylaani Xuseen Yuusuf raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Jubbaland Garbaharey.